hubinta wadnaha waxaan u kala qaadaynaa qof xanuun wadnaha hadda ka hor loogu sheegay ama lagu og yahay ilaa yaraantiisa sanadkii meeqa mar oo hubina qaybta labaad waxay noqon doontaa qof aanan xanuun hadda ka hor wadnaha looga sheegin goormuu hubina caafimaadkiisa marka aan ku hormarno qof aanan xanuun isku ogeyn ama hadda ka hor aanan xanuun loogu sheegin goormuu hubina wadnihiisa dabcan waxaa waqtiga ugu horeeya ee munaasabka ah ee qofka bini aadamka la rabo inuu wadnihiisa hubiyo waxay tahay marka uu gaaro 20 sano ama 20 sano wixii ka dambeeya waqtiga la hubinayana waxay tahay 2 sano ilaa iyo 4 sano hal mar inuu hubiyo qofkii ilaa cimrigiisa inta ka dhiman taas waxay ka saacidaysaa haddii wadnaha ay wax ku soo ziyaadaan maadaama xanuuno hore aysan jirin in waqti hore la arko si loola tacaalo xaaladeeda qaybta labaad aan hore ugu soo hadalnay qof hore loogu ogaay xanuunka wadnihiisa dhibaato lagu sheegay ama xanuun qabo qofkaas waxaa talada soo noqoshada ama hubinta iskala mar walbaba dhakhtarka uu ku taxan yahay wadna xanuun ama wadna qabad wuxuu noqonayaa in wadnaha xididada dhiigga gaarsiinaya mid ka mid ah ama qaarkood inay xirmaan ee awoodi waayaan inay gaarsiiyaan wadnaha dhiig ku filan iyo oksijiinka wadnaha hadduu gaari waayo khaasatan murqaha wadnaha hadduu gaari waaye ama uu heli waaye oksijiin ku filan iyo dhiig hadduu soo gaari waaye waxay keenaysaa inay murqahaas wadnaha ay dhintaan haddii aanan sida ugu dhaqsiyaha badan xididadaas wadnaha xirma aanan la furinna waxay keenaysaa inay wadnahaasi murqihiisa ay dhintaan calaamadaha lagu garto wadna qabadka wuxuu yahay qofka in uu dareemo xanuunkaas asagoo ka dareemayo dhaxbartanka feeraha asagoo ka dareemayo xanuunkaas mararka qaar waxaa dhacdo inuu noqdo xanuun muddo soconayo waxaa laga yaabaa inuu xanuunkaas ku fido gacmaha qaasatan gacanta bidix ilaa calacalaha inuu ku fido marar qaar wuxuu ku fidaa lafta garka hoostiisa iyo daamanka marar qaar wuxuu ku fidaa qoorta iyo dhagaha hoosteeda calaamadahaasaa lagu gartaa qofka marka haddii calaamadahaas ama waxyaabo la mid ah lagu arko khaasatan hadduu ahaa qof xanuuno hore loogu ogaayo sida dhiigkarka macaanka iyo waxyaabahaas iyo kolestaroolka mar walbaba waxaa muhiim ah sida ugu dhaqsiyaha badan in la geeyo xarunta caafimaad ee ugu dhow dhiigkarka markaan ka hadlayno dhiigkarka waa in cadaadiska dhiigga uu sare u kaco khaasatan cadaadiska dhiigga markaan ka hadlayno hadduu sare u kacona micnaheedu waxay tahay xooliga ama qulqulka dhiigga uu ku socdo xididada dhexdiisa ku socdo inay cadaadiskaas uu sare u kaco cadaadiska waxaa lagu cabiraya waxay noqonaysaa in qofkii micnaha waxaa la dhahay dhiiggiisii labada qayb la cabiro oo ah micnaha waxaa la dhahay qaybta sare ee dhiigga inuu noqdo 140 qaybta hoose ee dhiigga cabirkeedan uu noqdo 90 iyo wixii ka badan marar qaarna way jirtaa xaalado kale oo ayaga la fiiriyo so dhiiggaas cadaadiska sare u kacay waxyaabaha ugu badan ee keeno ama dedejiyo qofka ina waxa la yahay laftigooda waxay noqdaan inaan u kala qaadno laba qaybood qaybo ka mid ah horta keenista dhiigga inaan dhahno primary ama essential ama wax aan dhahno dhiiggaas waqti dheer muddo qofka kadib inuu ku dhaco dhiiggaas ama cadaadiskiisa uu kor u kaco anagoo tusaale ahaan usoo qaadanayna qofka inuu da' noqdo ama laga yaabo marar qaar in qofka dhaxaltooyo ama faraca laftigiisa ugu imaado waqti muddo kadib la arko dhiiggaas inuu cadaadiskiisa sare u kacay qaybta labaadna waa labada qaybood aan u kala qaybinayno qaybta labaadna ayada waxaa loo qaybiyaa in mid cadaadiskan dhiigga sarada u kacay uu keeno xanuuno kale jirka ku dhaco sida in kilyaha xanuun ku dhaco in xididada halbowlayaasha dhiigga jirka waraabiya qaybo ka mid ah macnaha waxa la cariir noqdaan oo sidaas dhiig ugu dhaco in wadnaha laftigiisa qaybo ka mid ah wadna xanuunka laftigiisa uu keeno in cadaadiska dhiigga uu sare u kaco meelaha qaar isku dheelitirka dhacaanada ay soo daayaan jirka ama hormoonada
inay isku dheelitirnaan waayaan ayadana waxay keentaa macnaha waxa la dhahay dhiigkarka macnaha waxa la laftigiisa qaybahaas waxyaabaha ugu badan ee marka dedejiyo inuu qofka dhiigga ku dhaco waxa ugu badan waxay tahay cuntooyinka qofka uu isticmaalayo qofka inuu isticmaalo waxyaabo dufanki waxyaabahaas ay ku badan yihiin raashinka cusbada iyo waxyaabahaas ay ku badan tahay qofka miisaankiisa ama qofka cayilan oo laftigiisa inuu dhiigga u nugul leeyahay ama uu soo dedejiyo qofka dhaqdhaqaaqa aanan sameyn iska fadhiyo mar walba ama socodkiisa uu yar yahay laftigiisa wuxuu u nugul lahaana mar walba cadaadiska dhiiggiisa inuu sare u kaco ama qofka laftigiisa taa dhafarka iyo waxyaabahaas macnaha waxa la dhahay mar walba ku jiro intaasba macnaha waxa la dhahay waxay ka mid noqonayaan waxyaabaha dedejiyo qofka macnaha waxa la dhahay inuu cadaadiska dhiiggiisa uu sare u kaco waxyaabaha ugu muhiimsan qofka markuu la tacaalayo dhiigkarka ama hore loogu sheegay inuu qabo dhiigkar waxa ugu horeeyo talada dhakhtarka uu siinayo mar walba inuu qaato sida loo soo siiyay taladana macnaha waxa la dhahay inuu ku dhaqmo waxaa kaloo muhiim noqonaya qofka haddii loo qoro daawooyin oo cadaadiska dhiigga hoos loogu dhigayo waxaa mar walba oo muhiim ah in daawada sidii dhakhtarka uu u siiyey inuu u qaato xataa haddii dhiigga cadaadiska uu degan yahay waxaa kaloo muhiim ah daawada dhiigkarka waxay ka mid tahay daawooyinka qofka ilaa iyo noloshiisa uu qaadan doono marka mar walba waxaa muhiim ah daawada markay dhammaato dhakhtarka xilligu soo noqon lahaa inuu ku noqdo tan labaad ayadana ka qayb qaadan karta in dhiigga hoos loo dhiga cadaadiskiisa waxaa ka mid ah hadduu qofka cayilnaay in uu miisaanka dhimo miisaankaas hoos loo dhigayo waxay ka qayb qaadan doontaa inuu dhiigga cadaadiskiisa uu hoos u dhaco waxaa kaloo ayadana muhiim ah cuntooyinka cusbada ay ku jiraan qofka inuu joojiyo raashinka dufanka leh iyo waxyaabahaas inuu iska ilaaliyo waxaa kaloo muhiim ah qofka jimicsi joogto ah inuu sameeyo mar walbaba haddii uu qofka leeyahay balwad waxaa muhiim ah mar walbaba balwad inuu joojiyo sigaarkii iyo qaadkii waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeni karo inay dhiigga cadaadiskiisa ay sare u qaadaan marka aan ka hadlayno isku dheelitirnaanta cuntada xaggeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka noloshiisa la rabo in la xadido haddii uusan qofka isku dheelitirin cuntada uu cunayo waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee keeno qofka in cadaadiska dhiigga uu sare u kaco in dufanka jirka ku jiro in uu bato waxay kaloo ka qayb qaataan miisaanka qofka ama inuu qofka cayilo intoodaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka u keeni karo in ugu dambeyn qofkaas lagu arko xanuunada ama wadno qabadka marka laga hadlayo walwalka iyo walbahaarka qofka haysto ama noloshiisa haddii ay la soo daristo waxyaaba dhib ah ama caqabada u keeni kara inuu walwalkiisa aad u bato waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee qofka bini aadanka keeno inuu dhiiggiisa sare u kaco waxay kaloo ka qayb qaataan qofka hadduu walwal iyo walbahaar badan galo in dufanka jirkiisa ku jiro ama cholesterolka inuu sare u kaco waxay kaloo ka qayb qaataa walwalka iyo walbahaarka in sokorta iyo waxyaabahaas laftigooda qofka ay ku soo degdegtay laftigeeda ay badato intaas oo iskaashado waxay u nugul leeyihiin ama ay ka mid yihiin waxyaabaha keena wadno qabadka sidaas darteed mar walba qofku wuxuu khatar ugu jiraa wadno xanuunka mararka qaar waxaa dhici karta qofka walwalkii iyo walbahaarka hadduu ku bato si uu u xalliyo walwalkiisa iyo walbahaarkiisa inuu dhafar galo inuu seexan waayo inuu hurdi waayo inuu dhaqdhaqaaq samayn waayo inuu daawooyin isticmaalo sida xanuun baabiyaal iyo waxyaabahaas intoodana macnaha waxa la waxay wax ka bedeli doonaan inay sare u qaadaan dhiigga ama inay macnaha waxa la dhahay laftigiisa dufankii waxyaabahaas ay kor u qaadaan intoodana aakhirka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee keeno wadno qabad